maalintii gudoomiyihii aniga iga horeeyay la qarxiyay oo dad badan oo ehelkayga ah isku meel lagu laayay jamcadii ku xigtay xadbeed waxaan dhageystay masaajidkii ugu xigay masaajidka wadaadka wuxuu ka leeyahay tarbiyada awlaad khudbadana waxaa loogu talagalay asbuuca waxa soo dhaca in lagu sheego oo lagu saxo ummadda culimada waxaan u sheegayaa masaajidda kaliya ku tukan maysa anana banaanka joogmay ama waa xiraynaa ama shabaab wala wada diriraynaa ayaan dhaway masaajid baa nin lagu hordilay wadaadkii iimaanka baa la xiray odayaashii oo dhan baa yimid waa la ila soo hadlay wadaadkii hal la sii daayay wadaadkii taliyihii qaybtaan waxaan ku yiri wadaadka soo daa baaridna gelina culimadii iyo odayaashii baan qado u sameeyay waxaan ku yiri culimo Allah iyo soo masaajid ma wax ka hadlaysan aniga waxba iguma fadhiyo adinkiisa ay dhiba kuma tukado ama aan masaajidku wada tukanno oo shabaab dagaalku waa diin bay wadaan been ahayd diin taxriifka ka sax ama masaajidda waa xirxiraynaa kulligeena guryahan ku tukanaynaa بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد ويهن وحا هذا الصوبضان يا سوشيال ميديا خاصة ما قد لما قيو دينت لما قيو قارهان دادك مسؤولين تأهي صومالي دا أما السياسة دا كتشرتا أما jagooyinkii mas'uuliyaadka haya ayaa marar badan waxa soo noqonaysa hadallo gaf ku ah ama meel kaga dhac ku ah diinta islaamka oo ay ummadani xambaarsan tahay hadda ka hor dhowr goor waa kii dad mas'uuliin oo si khaldan uga hadlay diinta ay culimadu ka hadleen la saxay laga jawaabay la baraarujiyay laakiin waxaad moodaa arrintaasi inay noqotay arrin iska moodo socota ay noqotay waxa u dambeeyay oo maalmahan social media la isdhex wadaa oo aan jeclaan lahaa in cid kaleeto oo naga kaafisan heli lahayn oo muxuu ahay caddeeya nin ka hadlaya magaalada Gaalkacyo sida kulli hadalkiisa ka muuqata inuu gudoomiyaha qaybta Puntland inuu yahay baa ka muuqatay magaalada Gaalkacyo inuu mas'uuliyad kala hayana ma garanayo laakiin in mas'uul u muuqda sida hadalkiisa laga fahmayo ninkaasi hadalkiisu wuxuu u eg yahay marka hore ku bilaabanaya in uu culimada doonayo inuu kala hadlo ama ku eedeeyo inaysan ummadda waxa haysta iyo dhibka haysta aysan ka hadlin khudbooyinka jumcada iyo meelaha munaasabaadka ummadda lagu baraarujinayo waxyaalo kale ay kaga hadlaan wuxuu soo qaadanayaa qiso uu leeyahay qaraxada ka hor dhacayo dad qaraabadiisa lagu laayay soo sheegayo iyo ninkii gudoomiyihii iga horeeyay buu leeyahay markuu dhacay kadib jumcadii ku xigtay masaajid aan muxuu ahay khudbadiisa aan dhageystay ayaa wuxuu kaga hadlayaa buu leeyahay ninka imaamka tarbiyatul awlaad طبعا wuxuu ka wada bimaanaha isma laha dhibka ummadda haysata iyo waxa uu wadaadku ka hadlayo markaas wuxuu ku xijiyay khudbada waxa loogu talagalay arrimaha markaa taagan ummadda haysta in lagaga hadlo waana hadal saxa in ummadda lagu baraarujiyo kolba xaaladda taagan in khudbadu ka hadasho culimaduna ay baraarujiyaan intaasi qoonsi ma laha dhib ma laha laakiin wax la yaab leh wuxuu noqday wuxuu yiri culimadu waxaan u sheegayaa masaajid ku tukan meysaan annaguna banaanka ka joogi mayno ama waan xidhaynaa ama shabaab waan la wada diriraynaa masaajidda waa xidhaynaa haddii aan masaajidu ayna shabaab la dagaalamin
intaa markuu yidhi ayaa waxaa isqabsaday hool weyn buu ka hadlayaa oon u malaynayo dhanka galmudug inuu yahay. hoolka uu ka hadlayo dad badan baa fadhiya, rag iyo dumarba leh. hoolkii waxaa isqabsaday sacab iyo mashxarad ayaa isqabsatay. kadib haddana wuxuu ka sheekeeyey, wuxuu yidhi masjid ayaa hortiisa nin lagu dilay, kadibna wadaadkii imaamkaa baa la soo xidhay, odayaal baa u ergeeyey. waxaan la hadlay buu yidhi ninkii amniga haystay oo waxaan ku yidhi wadaadka soo daa, baadhisna ha gelinin, adoon baadhin soo daa. kadib waxaan kulmiyey buu yidhi culimmadii iyo odayaashii baan kulmiyey, hadalkanaan ku idhi buu yidhi, hadalkaas aada ugu fiirsada. waxaan ku idhi buu yidhi soo masjid ma aha waxa aad ka hadlaysaan. masjid aniga waxba iiguma fadhiyo, adinkiisa ayaa idhiba, mana ku tukado. masjid aniga waxba iiguma fadhiyo, aadaankiisuna waaba idhibaa, kumana tukado. intaasuu isku daray. intaa markuu yidhi mar kale hoolkii sacab baa isqabsaday. wuxuu mar saddexaad yidhi culimmadii isagoo la hadlaya, ama aan masjidka ku wada tukanno culimoy, ama shabaabku diin been ah ayay wataane taxriifka ka saxa. wuu ku celiyo wuxuu yidhi ama masjidka waan xidhaynaa, masaajidda waa xidhaynaa, kulligeenna guryaha ayaan ku wada tukanaynaa. masaajidda waa xidhaynaa, kulligeenna guryahaan ku wada tukanaynaa. waxaan is idhi markaa ninkani ma culimo gooni ah buu ka hadlayaa, deegaanka uu joogo culimmadooda miyuu ka hadlayaa? laakiin markaan haddana dib u sii dhegaystay oo hadalkiisa gadaal dambe culimmadii oo dhan ayaan u jeedaa, culimmadoo dhan buu wada saaran yahay oo ka hadlaya. haddaba hadalka noocaasa iyo dhiiranaanta noocaasi, indhadayga noocaasihi oo ruux muslim oo ilaahay aakharo rumaysan ah uu ku hadlayahay, oo haddana social mediaha la soo geliyoo dadkooda dhegaysanayaan, oo haddana ruux mas-uul ahoo xil haya uu yahay, waa arrin runtii wax weeye aada iyo aada naxdin u leh. waa sax in culimmada lagu baraarujiyo waajibkooda, iyaguna isbaraarujiyaan ciddii kalee dareemaysa inay culimmadu mas-uuliyaddoodii ka gaabiyeenna inay ku baraarujiso, arrin saxa weeye, hadal kama noola. in masaajidda iyo khudbooyinka ka baxaya ay ummadda mashaakisha haysata lagu daaweeyo, cudurrada lagu daaweeyo, inxiraafka diiniga iyo yacni qallooca diinta lagu sameeyo lagu saxo, ayaduna waa arrin sax weeye. laakiin waxaa qoonsi weyn leh, dalab iyo qallooc weynna uu ku jiraa hadallada uu ninkaasi daba dhigay hadalkaa isagaa. haddii aydan shabaab la dagaalamin masaajidda waan xidhaynaa. shabaab iyo inta la midka oo afkaarta khaldan xambaarsan, in ummadda looga digo afkaarta khaldan cid walboo xambaarsanba waa mas'alo ka mid ah masaa-isha culimmada iyo masaajidda iyo ducaaddu inay ka hadlaanoo cid kasta oo khaldantay sidii loo toosin lahaa ay ka hadlaan, ummaddana ku baraarujiyaan. waa mas'alo masaa-isha muhimkaa ka mid a. laakiin kaba soo qaad haddii ay dhici weydo, masaajiddii ma la xidhayaa? masaajidda ilaahaysma waxaa loo dhisay oo keliya in uun lagaga hadlo shabaab iyo khaladaadkooda keliya miyaa intaasoo loo dhisay? oo macnaheedu waxa weye haddii taa la waayo masjidku macnaa kuma fadhiya, waa in la xidha miyaa? waa arrin khalada weeye. masaajidda ilaahay waxaa loo dhisay sida nebigu yuri sal alla alay wasalam in lagu tukado, waxaa ugu muhiimsana loo dhisay salaada waaye. waxaa loo dhisay ilaahay dikrigiisa sida nebigu sheegay sal alla alay wasalam, waxaa loo dhisay in lagu cibaadaysto, waxaa loo dhisay in nuurka ilaahay ka baxo, waxaa loo dhisay in ummadda wax lagu baro oo lagu tacliimiyo, aakhiradeedii adduunkeeda yacni wax weeye danaheeda looga hadlo. waxaa loo dhisay oo qeybka ah wixii khaladaad ahee bulshada qeyb ka mida ay diinta ka gasho ama kooxi ka gasho in la saxo oo masaajiddu saxdo.
haddii marka mas'alo ka mida masaa'ishii masaajidu sixi lahayd ama qaban lahayd haddii la waayo masaajidda in la xidho miyaa? su-aal labaad weeyaane masaajidda xidhitaankeeda yaa xaqu leh, yaa xidhi karaa? allahu qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahy waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha wa saca fii kharaabiha. yaa ka dulmi badan cid ilaahay masaajiddiisa u diiday in ilaahay lagu xuso oo ka shaqeeyey masaajiddu say u kharrimi lahayd, u burburi lahayd, loo xidhi lahaa, dadka loogu diidi lahaa. wa sacaa fii kharaabiha. ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin. kuwa noocaasoo kale ah ma mudna inay masaajisa galaan ilaa iyagoo cabsanaya mooyaane. cabsiin bay mudan yihiin. markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi masaajidda ilaahay dadka camiraay yuu ilaahay tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo dadka mu'miniinta ah ilaahayna hanuun uga markhaati kacay. marka masaajiddii waa xidhaynaa. waa hadal aad iyo aad u culus weeye inuu ruuxu ku hadlo, bal inuu niyoodo inuuba bulsho dhexdeeda kaga hadlo haddana loo sacbiyo iska badaa masaajidda ilaahay baan xidhayaa. waxaan u malaynayaa hadduu awood u yeelan lahaa sida macron oo kaleeto inuu masaajidda u xidhxidhi lahaa sida hadda hadalkiisa ka muuqata. waana arrin runtii waxa weeye ruux muslima oo qalbigiisa iimaan yar ku jiro aan ka soo bixi karin way hadalka noocaas oo kale. waxaa ka sii daran ka daroo dibi dhal bay soomaalidu tidhaahdaaye yasidda iyo xaqiridda masaajidda. oo wuxuu ninka hadalkiisa ka mid ahaa masjid aniga waxba iiguma fadhiyo mana ku tukado. hadduuna masjidku qiimo kuugu fadhiyin oo uusan waxba kuugu fadhiyin ma muslim baa tahay isweydiin waaye. ilan ilaahay mu'miniinta wuxuu ku tilmaamay inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyowmi alaakhiri wa aqaama alsalaata wa aata azakaata walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu. ilaahay magaciisa in lagu xuso mu'miniin baa ku xusa, mu'miniin baa ilaahay ku caabuda, dad ilaahay maalinta aakharo rumaysa. masaajiddu waa muqadasaad, muslimiintao dhan bay ka dhexeeyaan. muslimka caasiga iyo midka mutiica ah kulligood masaajidda agtooda qiimo weyn bay ku fadhiyaan, ixtiraam bay leeyihiin. nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh magaalada madiine markuu soo galay shaqadii ugu horreysay uu qabtay bulshadu ay isugu tagtay waxay ahayd in masjidka la istaajiyo. nolosha muslimiintu waa masaajidda. haddii marka masaajiddii ayna macno kuugu fadhiyin ma shacab gaala a baad u tahay mas-uul mise shacab muslimaad mas-uul u tahay adiga ku garanaya. nabigeennu sal alla alay wasallam waa ka dhahaya xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra axabu albilaadi ila allahi masaajiduhaa. dhulka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay waa masaajidda. ilaahayna waa ugu jecel yahay dhulka. adigana macna kuuguma fadhido, qiimo kuuma laha masaajiddu, waxba kuuguma fadhiyaan. laakiin waad caddaysayoo waxayna macno kuugu fadhiyin kumaba tukatidba. haddaadan ku tukanin dadka ku tukada adeer maad u daysid. adigu haddaabad bannaanka ka martay dadkan ku cibaadaysanaya ku tukanaya ee ixtiraamaya masaajiddu macna ugu fadhidee noloshooda ay qiimo weyn ugu fadhido maad u daysid. maxaad uga xidhi? maxaad ugu hanjabi? waa wax la yaab la waay. ruux muslim ah oo aakharo iyo ilaahay rumaysan inuu yidhaahdo masaajiddu waxba aniga iguma fadhido waa cajiib. waxaa ka sii daran aadaanka masaajidkaaba idhibaya buu yidhi. waa su-aale aadaanka masaajidku yuu dhibaa oo dhibsada shayaadiinta. nebi maxamed baa salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi sheegay xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra. nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam idaa nuudiya lisalaati adbara ashaytaanu walahu turaad. marka salaada loo aadaamo aadaanku baxo, adinku markuu baxo shaydaankaa carara asagoo dabada neef ka sii daynaya xataa laa yasmaca ata'diin. wuxuu tegayaa meel uusan aadaanka ka maqlin, waa ka cararaya. markii mu'adinku aadaanka dhammeeyo ayuu haddana soo noqonaya. markii aadaankii haddana aqimaadda la bilaabo oo salaadda in loo aqimo uu bilaabo ayuu haddana cararayaa. aqimaaddii markay dhammaato haddana soo noqonaya.
نبي محمد صلى الله عليه وسلم بلال واكيلها بلالو أقم الصلاة أرحنا بها بلالو صلاة أقم نوغر راحيه صلاة دي آذانك عبادة نوغر راحيه صلاة دي عبادة دي آذانك قيمات دي ووحي وشيطان لبسنيي ضدك مؤمنين تي أهل الخير كنا أي كل راحي سنيين مركا آذانك باكل لبا يا مسلم نواتح كافية كلا ديري صوماه ووح لياب لواه محاضر لبستي آذانك محا كان راعي آذانك محا آذانك كالت شراء محا مساجد أو حري بل سويدي وهذا الآد يا آد أخرى رواه اسم لهين روح مسؤول أو مسلم فهذا اللذا النوع عاسكوها الله مركل اسم لهين شعب مسلم أو الرقي الضمر بله أيها هذا اللذا النوع عاس انتو هرتو هذا اللي هذا يسعب بنيان أو يمشحر ضيان اسم لهين واسوح لياب لواه وحامداً inaan baraarujiyo ama aan ku baraarugno culimada uu ninkaasi maagayo ee uu ku maagayo al-shabaab iyo afkaartooda maad ka hadashaan oo saxdaan asaguna uu iska dhigayo ninka haliyeyga ee hawsha u taagan waa wax la yaab leh waxaan garan la'ahay ma nin hurdo ka soo kacayba oo aan laba soconin baa wixii dalka ka jiray iyo dowrkii kaalintii culimada mise waa nin doonaya uun dad eedayntooda inuu asagu magac iyo weji ku gaadho sababtu waxa weeye deegaanka uu ka soo jeedo oo Puntland iska daa meel kale deegaamada kale Soomaalida iska daa labadii sheekh ee ugu caansanaa ee indhaha u ahaa al-shabaab baa dilay waxay u dileen oo ku qoonsadeenna waxay ahayd war waxaanaad wadaani waa khalad dhiigan aad daadinaysaan waa khalad ummaddan aad laynaysaan waa khalad axmed xaaji cabdiraxmaan allah u naxariiso iyo sheekh cabdiqaadir nuur faarax culimada waaweyn ee Soomaaliyeedna ka mid ahaa dhulka Puntlandna labadii indhaha u ahaa wuuna og yahay ninka saa u hadlayahay markay ummadda khaladaadka noocaasa ay ka saxayeen askarna mayna haysanin lamana waardiyeyneenin midna salaada subax isagoo ka soo baxo gurigiisa u socdaa la dilay hal nin baa la socday waardina ma lahayn midna isagoo salaada casarka ku jida oo rukuucsan baa la dilay magaalada Garowe culimadii sidaa loo laayay ummadoo dhanna markhaati ka tahay ayagoo kala Muqdisho lagu laayay iyagoo kala Baydhabo lagu laayay iyagoo kala meelo badan lagu laayay qaar baa guryahoodii iyo reerahoodii aan yaani wax way ka cararay qaar baa dibadaha u cararay ayaa wuxuu leeyahay ma shabaab ka hadashan hadad ka hadlayo masaajidda waa xidheena wax la yaab leh goormaad timid dalka goormaad timid goormaad meesha timid waa wax aad iyo aad loola yaabo waa culimadu munkaraadka wadanka ka dhacaya ama dawladda ha sameeyso ama muxuu ahaay shacab ha sameeyo ama ha sameeyo koox gooniya ha sameeyse in ay ka digaan ummadda uga digaan waajib sharci oo saaran waay jagana kuma qaataan magacna kuma raadsadaan xoolana kuma doontaan mushaharna laguma siiyo lama waardiyeeyo baynama wiilka saa u hadlayay shaki wuxuusan igaga jirin xafiiskiisa markuu joogana waardi baa saaran markuu soo dhaqaqo banaanka u soo baxana waardi baa saaran oo afarta dhinac baa laga yaacaya keligii isagoo intuu banaanka soo istaago ma hadli karayo culimada Soomaaliyeedna ayagoo ninna la soconin oo keligooda bay ka hadlayaan oo laleynaya markaasuu intuu libax iska dhigo doonaya inuu eedayo yiraahdo maad ka hadashaan oo shabaab hadii kale masaajidiina waa xidhayna waa wax la yaab leh biyuusan xusuusnayn oo ummadda Soomaaliyeed ayna xusuusnayn hanti wadaagii iyo markisiyadii wadanka qabsatay ilhaadka ahayd ee dawladda Soomaaliya u dambeysay
ay ruushka kala timid ee diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala aayadaha qur'aanka inay ku jeesjeesto oo ay isku daydo inay nasakhdoy beddasho ciddii hor istaagtayoo maya tidhi siyaasina ma ahayn mutacallimna ma ahayn nin kursi ku fadhiyana ma ahayn culimo soomaaliyeed oo masaajid toogtay ahayd oo yidhi ma la beddeli karo ilaahay qur-aankiisa dhaxalku waa dhaxalkii ilaahay xeerka qoysku waa kii ilaahay dejiyey waa la ogaayo waa la laayay dhegtaa dhiigga loo daray iyadoo la wada fiirsanayo dowladdii markay burburtay masaalixda ummadda dadka u taagan in badani waa culimmadii waa ummadda aqoon-yahankeedii wey hadday noqoto waxbaridda madaarista iskuullada jaamacadaha waddanka ku yaalla intooda badan yaa asaasay yaa gacanta ku haya yaa wada yaa ummadda u gurmanaya masaa'ibtu markay dhacdo oo muxuu ahay dhibaatooyinkeeda ka jawaabaya markay isku dhacaan qabaa'ishu ama deegaamadu yaa heshiisiintooda ka shaqaynaya oo ku dadaalaya ummaddii dibadaha aaday oo qurbaha aaday oo waddamada gaalaha aaday yaa ka daba tegay oo badbaadadeeda ku mashquulsan waa wax la yaab la waaye in ummadda waxqabadkeeda taa macnaheedu maaha inay culimmadu macsuum yihiin taa macnaheedu maaha inay culimmadu waajibaadkoodii wada guteen waa bini aadan waxbaa ka khaldami kara way gafi karaan muxuu ahay waxbay ka gaabin karaan laakiin ma aha in uu nin shalayto meesha tegey oo yacni waxa weye waxoogaa wax isyaro biday inuu culimmada maago oo masaajidda maago oo diinta maago oo haddana muxuu ahay loo sacabiyo sax ma ah waxaa la yaab leh oo aad iyo aad wax loola yaabaa ololayaal waayahan dambe waxaa aad u soo kordhaya oo weliba dabaqada siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ku soo kordhaya rag iyo dumarba yacni waxaweye dagaagga ay diinta ku dagaagayaan maagidda ay diinta maagayaan mabaadideediiyo ususkeeda ay maagayaan baa ku soo kordhaya soomaalida arrintaana waa arrin u baahan shacabka muslimka ah ee diintan ku abtirsada dadka noocaasoo kaleeta inay maya yidhaahdaan inayna culimmada la sugin inayna muxuu ahay cid kale la sugin inay yidhahdaan maya beddelka loo sacabinahayo oo loo mashxaradayo waxay ahayd in la yidhahdo maya ma istaahishid adeer ma istaahishid in la qabtay ahayd ummaddani waa ummad munkarka diidda ninkii doonay ha ku hadlo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacdin ya'muruuna bilmacruufi wa yanhawna cani ilmunkar mas-uuliyadda ummaddoo dhan aynu wada leenahay ilaahay ina saaray waxa weeye wixii munkar ah ee xumaan ah iyo hadalka qalloocsan iyo falka qalloocsan inaanana maya oon diidno haddii kale iimaan ma jiro waa kii nabigeennu yidhi sal alla alay wasalam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastadic fa bilisaanihi fain lam yastadic fa biqalbihi wadalika adcafu aliimaan iimaan waxaa ugu daciifsan inaad qalbiga ka inkarto haddaad ka hadli kari weydo gacan waxba kaga qaban karaynin qalbigii xataa inaad sacabiso ood mashxarado bimacnaa waxa waa ku waafaqsanahay waay waa saxan tahay waay arrintaasi arrin saxsan ma aha waxaan leeyahay ninkaasi qaabkaa u hadlay towbad baa kuu furana ilaahay u soo noqo masaajidda ilahay inaad ku gafto ood tidhaahdo waan xidhxidhayaa oo haddana aad tidhaahdo waa muxuu ahay waxba iiguma fadhiyaan oo haddana aad tidhaahda aadaankiibaa idhibaya oo haddana waajibkii ilaahay intaa dayacada aad ku faanto tidhaahdo kuma tukado ilaahay u soo laabo waxaa soo munkaraad ah ood haddana sii daynayso ilaahay u soo laabo toobad baa kuu furan toobadkeenoo ilaahay u soo noqo shacabka muslimka ana waxaan leeyahay ma istaahilo dadka noocaasoo kaleeta ah inaad mas-uuliyad ku aamintaan ma istaahilaan masaa'ibta idinku dhacaysa ee idin bilowday ee soo noqonoqonaysa ee shabaab iyo afkaartoodu ay ka mid tahay ee nabadgelyo darradu ka mid tahay ee abaaruhu ka mid yihiin waxaan masaa'ib idinku dhacay oo dhan waxaa keenaya waa hadallada noocaasoo kale yacni dalabta leh ee ilaahay loogu gafayo kadibna cuquubadu ka dhalanayso ayaa keenaya dhibaatada ina haysato qayb ka ah dadka noocaasoo kalea marka ma istaahilaan in mas-uuliyaad loo dhiibo ma istaahilaan inay ummad muslima hor istaagaan ma istaahilaan inay jago u hayaan dadka noocaasoo kaleeta haddii maanta ninkaasi uu madaxweynihiisa kelimo ku dhihi lahaa kelimo dalab leh xataa sarbeeb hadduu ku dhihi lahaa kursigaa muusan ku fadhiyeen waa la tuuri lahaa nin mas-uul oo ka sarreeya hadduu wax yar hadal la qoonsan karo ku dhihi lahaa
maalinkaasaa bannaanka loo tuuri lahaa laakiin diinta ilaahay waxay noqotay wax lagu falaado wax lagu dagaagay noqotay oo ninkii xanaaqaba uu muxuu ahay uu dadka magac kaga raadsado weji ku raadsado meelihii ugu dambeysay way masaajidii iyo salaadii iyo aadaankii iyo in yani wax weyn la duro oo lagu faano oo hadana la isugu sacabiyo oo la isugu mashxaraday waa ceeb weyn bay runtii inugu tahay arrimaha noocaas oo kaleeta ah inay soo noqnoqdaan bulshadu waa inay diinteeda ixtiraamto madaxdu waa inay diinta ummadda iyo dhaqankeeda inay ixtiraamto mas-uuliyiintu waa inay u dhaqmaan si mas-uulinimo ah waa inay u dhaqmaan maaha ciyaal suuqnimo inay u dhaqmaan maaha marka hala toobad keeno in alle intii u sacabisay intii meesha fadhiday asaga in alle intii u riyaaqday ilaahay hala toobad keeno hala soo noqdo hana laga soo noqdo gafka noocaas oo kale ah waxaana dhihi lahayaan lagu noqoninoo dadka mas-uuliyiinta diinta ummadda u badbaadiyaa dumarkii baa maagaya oo gabadh jaga ku fadhidaa waayahan muxuu lagaba kari lahayaa diinta inay maagto yaa oo muxuu ahay mas-uuliyiintii kaliya kuwii kuraasta rabay baa laga kari laayay oo kuwa kursi ku fadhiyaa laga kari laayay war majaalaad kaloo badan oo laga hadlaa jira diintu waa inay noqoto muqadas ummaddani wada ilaashato nin walbana uu ilaaliyo la ixtiraamo ninkii ku dhaqmayo aakhare ilaahay yani wax kaga raadsanayana meesheeda waay ninkii isagu meel kale aadayana dee isagii khusaysaa laakiin wax yani aan lama taabtaan ah waa inay diintu noqoto oo muxuu ahaay ninna ma laha culimo gooni uma laha caamba gooni dowladi gooni uma laha diintu waa diin ilaahay soo dejiyo xaqa in la ilaaliyana ay tahay intaasaan doonayay inaan baraarujiyo ayna tahay in la baraarujiyo munkarku markuu bannaanka u soo baxo oo miidiyaha yimaado oo meel walba yani saaqaayay waa in la baraarujiyo waa waajib culimada saaran waay jazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu